ay ku xoog badan yihiin marka dadkaas mar walba meel walba laga dhigtay shadranji maartay shax marka iyagu ma kama qayb galayaan shax laakiin iyaga waa lagu shaxayaa adduunyo maartay force kale oo dibadda ah yaa maartay degaya iyaga ku shaqaysanaya sidaad ogtahay journalkan aan geliyey 64kii ka soo baxay qaahira dagaalkii horreeyay ay isugu hor yimaadaan Soomaaliya iyo Ethiopia waxaa qoray nin la yiraahdo Xuseen Cabdiraasaq oo 3 sano ka hor uu noolaa wuxuuna madax ka ahaa xisbi mucaarada inuu hadda nool yahay in kala waramayo marka journalkan al-Jumhuuriya u diray Xuseen Cabdiraasaq dagaalka inuu maartay reporter uga noqdo xisbi mucaarada inuu hadda nool yahay in kala waramayo marka journalkan al-Jumhuuriya u diray Xuseen Cabdiraasaq dagaalka inuu maartay reporter uga noqdo oo soo tabiyo soo dagaalku socdo 3 maqaal oo dheer yuu soo qoray 3diiba waan hayaa mid baan meeshan geliyay Xuseen Cabdiraasaq yaktuub min Muqdisho Xuseen Cabdiraasaq yaktuub min Addis Ababa Xuseen Cabdiraasaq yaktuub min Kenya min Nairobi 3 soo qoray marka kan aan geliyay yuu aad wuxuu ka hadlayaa geesinimada ummadda Soomaalida isku duubnaanteeda sida ay u hor istaageen ciidankii Ethiopia oo intaas soo sano maartay reer galbeed hubinayay wuxuu sheegay marka wuxuu yiri wayna ku qoran tahay meesha ku qoran tahay wuxuu yiri qisadii waxa jirtay buu yiri magaalo la yiraahdo Doolow yaa maxaradu soo ataagtay booliskii baa ku mintaday booliskii markuu ku mintaday booliskii waa ka qaadi waayay markaas la hadlay ciidankii joogay Baydhaba ninkii madaxda ku ahaa waxa la yiri u gurmo ninkii baa soo gurmaday 3 maalmood buu la dagaalamayay uu ka saaray maartay ciidankii maxarada Doolow ninkaas uu wareysanayo waxa weeye Mijir Cabdullaahi Yuusuf wey dhowr iyo 40 sano kadib Cabdullaahi Yuusufkii ka xoreeyay Doolow maxarada yaa isagoo dhowr kun oo Ethiopia isagoo wata soo geliya Soomaaliya marka taa waxay ku siinaysaa ragga Soomaaliya ee tiyaatarka maanta jooga waxa nool inaan ahayn dad aragti dheer leh oo ummadda Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliya meel uu joogo wuxuu u baahan yahay mideyntiisa iyo nabadiisa niman oofin kara inaan ahayn bay ku tusaysaa marka taa markii la ogaaday hadii ummadda Soomaalida baabaada rag doonaya amxaaro Kenya iyo cadawga reer galbeedka oo iyaga gacan siiya raggaas marka rag soo sameystay meelaha ka soo sameystay markaas waxa la yiri dawladaan idin dhisayna 3 goor miyaa la yiri yaa la dhisaan u marinay dawladu banaanka lagu soo dhisay dawladahaas ummadda Soomaalidu ma dooranin baarlamaanka kuwa la sheegayo ummadda Soomaalidu ma dooran waa aniga ra'yigayga personalka marka iyadoo la helin dad madax Soomaaliya oo heshiis Soomaali oo ummadda Soomaali wadankeeda ka dhashay iyadoo la helin waxay la tahay dibadahan waxa laga soo dhisayo iyo axzaabtan hadda magacyo badan oo islaam ah oo aan u maleynayo inuu san ahayn maartay islaamka runta aha sheeganaya inay ummadda Soomaali midnimadeeda iyo nabadgelyadeeda iyo qarannimadeeda inay soo karin bay la tahay nimankan cusub al-shabaab boqolka magac la kala baxay ahlu sunna fikradahan ay ku dagaalamayaan ma fikrada shisheeya ama wax dibadda loo keenaa mise wax uu iyaga ku dhashay sida ay fikradaada kula tahay adiga أنا شخصياً سيدا إلتها إنكستو باركتي أي تاي أركتي برسونيل أفكار تان هدا سومالي كده قال ما يصيرن وأفكار دبته كتبينوي معها دن سوماليات ومدة سوماليات أفكار كده لطي دن السوماليات من لماذا السوماليين إيرانيان دونية معها أساس إلتها لكن ساعتها هذانا مرة والبويجران ومدة سومالي مال كستا كوا إسلامسكي كجيران كوا دولة هذا كوا الكركي كجيران دات سومالي أو داعات ولكن لقى على سارها لقى هستو ميلو البوات شوان دولة الشيخ شريف الشيخ أحمد هذا ما كوميل جاركا وحريرة ما كان حياة يجي دولة إثيوبيا ولو شيء كرتو وحقرنا أركب بيجرو لكن وحابة كو مارتي كو قنعن كربا مربع هدي أي كل واقع إن دولة درس أو نبتقليو ماركتي أنا نولي أنا ندوني ناب وشيخ شريف كيري مرة أنا وطن حصوص الجورنال فرنسيس كان كاخري
marka ana Ethiopia waa dawlad cadowga ummadda Soomaaliyeed way cadowga ummadda Soomaaliyeed ma noqon karno maartay xiriir darisnimo iyadaana sabab ah waxa xiriir darisnimo oo nabadgelyo ay u soo ragaladay Ethiopia sarar u ah marka mana anigu shakhsi ahaan inkastoo ay iska noqoto ay dadka qaarkood u arkaan inay Ethiopia iska tahay waxan nin Soomaali ah mas'uul ah oo Addis Ababa ka degay nin wadani Soomaali anu oo arkaba marka uu horeeyay cadowgii koobaad ummadda Soomaalida yaa shirki uu horeeyay markii dawladdiisa Soomaalida burburtay lagu qabtay marka taas nafteedu tusaalo ninkii wax garanay waxa tusaysaa inaan Soomaali aan rag lahayn ummadda Soomaaliyeed habeeya danaheeda inaysan jirin dad dana gooni ah iyo qabiil iyo waxyaalo afkaar banaanka ka timid dad lagu soo beero maskaxdooda ku qoran tahay inay maanta wax tiyaatarka kullu gudamay inay yihiin taasa muujinaysa wax anigu aan attack personal aan u leeyahay laakiin ninkii wax garanayo dhan buu arkaa Soomaaliya muddo 20 sano dagaal ka socday fargelinta waxa ku haya reer galbeedka sida Mareykanka Yurubiyaanka mise iyaga dhexdooda ayayna waxba ka suuragelayeen oo mid walba midka kale uu aamin laaya labadaba waa lagu jawaabi karaa midka oo resorta dhibaatadeena mar walba reer galbeedku ka qayb galay waa ognahay Ethiopia way ka qayb gashay waa ognahay Kenya way ka qayb gashay waa ognahay kaas haba la yaab kuwaas waa cadowga laakiin adigiiba u siinaya facility inay adiga ku sii kala googooyaan oo dhibaatada si qoto dheereeyaan marka waxa ay ku shaqaysanayaan u suura galinaya haday Soomaali dad wadaniyiin oo garasho leh waa la taxgelin lahaa oo danaha annaga maamulanayna fargeliska hanalaga daayo way heli lahaayeen wax u heliya way heli lahaayeen inay maartay wax isugu yimaadaan laakiin markay arkeen in madaxda ragga ah nin walba wax gooni ah oo isaga ama u khaas ah u doonayo yaa lagu shaqaysanaya marka waxa inaga marka u suura gelinayna oo facility ka siinayna in dhibaatadeenu sii qodan dheeraano Soomaalida nafteeda yaa siinaysa maartay hubka ay inuu dagaalamayaan waraysigan ogada news uu qaaday waxa naga soo codsaday dad badan oo ilaa 10,000 gaaraya oo akhristayaasha website-ka ogada news markii aanu gelinay taariikhdii iyo waxqabadkii Said Umar Said Maxbuub ayay dadku naga codsadeen inaan waraysi la yeelano Saidka kadibna uu sharxo dhacdooyinkii joornaalada badan oo ilaa 10,000 gaaraya oo akhristayaasha website-ka ogada news markii aanu gelinay taariikhdii iyo waxqabadkii Said Umar Said Maxbuub ayay dadku naga codsadeen inaan waraysi la yeelano Saidka kadibna uu sharxo dhacdooyinkii joornaalada iyo sawiradii iyo warqadihii uu dhaafsanayo meel walba u direeyay inoo sharxo marka Said Umar waxaan ka codsanaynaa iyo sawiradii iyo warqadihii uu dhaafsanayo meel walba u direeyay inoo sharxo marka Said Umar waxaan ka codsanaynaa muddo yar inaan noo sharaxdo codsigaas oo ka yimid dadweynaha banaanka ka taageersana meel walba jooga America Australia Africa meel walba inaan noo sharaxdo ka codsanaynaa taan halkan waa ogadenews.com ogada news marka sidii aan hore u soo sheegnay aanu waraysiga u soo sheegnay codsigii dadka shacabka ahaa ee akhristayaashii website-ka ogada news ayaan rabnaa inuu Said Umar noo sharxo muxuu ahaa joornaaladii iyo warqadihii siyaasadeed uu qorayay adduunyada weynaha u qorayay marka haddaanu mar dhawaan bilaab halkan waa page-kii Said Umar history-giisii iyo waxyaabihii uu qabtay aan soo gelinay marka Said Umar warqadda carabiga maxay ka hadlaysaa ama maxay ku saabsaneed history muxuu ahaa warqadda ugu horeysa sidaad ogtahay meel kasta oo joogo markaan intaan ardayga ahaa dawlad kasta oo joogo waxaan qaybin jiray halganka ummadda Soomaalida guud ahaan siibatan ogaadeenaya marka warqadan waxay warqadii ugu horeysay oo madaxweynaha Algeria Hawaar Bimadan Allah naxariistay aan kaga codsanayay in ay jabhada ay aqoonsadaan xafiisan noo furaan sawirkan 18 ruuxa muxuu yahay goormaas la qaaday xagees lagu qaaday